qodobada war iyo wacalaan idinka hayno carreeda waxa ugu dooroon Daalibaan oo digniin u dirtay naagaha wararka tabiya iyo kuwa aflaanta daawada madaxweyne Erdogan oo dulsaarka iyo ribada dalw ka turiyay maaleeyo oo mar kale isboqray iyo mucaaradka Soomaaliya oo la goodi wareegaya inay qaadacaan doorashada dacarta Itoobiya ka soconaysa iyo Abiy Ahmed oo qaatay daba jaariye Mareykanka oo askar ku shubaya Addis Ababa Soomaalida oo looga jadeer wacay inay kala taageeraan laba gaalo abtisiimo gudboon Turkiga iyo Imaaraadka oo halkii hore isaga soo dhawaaday iyo Somaliland iyo Djibouti oo looga digay inay ku soo dhuuntaan dagaalyahano ka soo cararay Itoobiya wararkaasi iyo warar kale oo dheeraad ayaan idahaynaa ku soo dhawaada barnaamijkeena wararka tabaqdoonka ah ee ka soo jirfanaya dalka Itoobiya ayaa sheegaya in Abiy Ahmed isku jeeni qaaray qori maadin yara ah weyse biya ah qorqor rasaasa iyo boosh tiyo ay dheer tahay macawistii lagu yaqaanay Itoobiyada ee kafanta u ahayd habeenkii xalay ayuu la soo guureeyay qoraal uu ku soo gasangeeray kobtiisa Twitterka kaasoo uu ku sheegay inay isaga iyo kooxdiisu u qayshaaran doonaan furimaha iyo jiidaha hore ee la isku horfadhiyo Abiy Ahmed ayaa kaniisadaha qolyaha curaafaysta iyo waliba duulka wax tufa ka duraantay inay xirsi xidh iyo bilaayo xijaab la soo garab joogsadaan si uu uga libkeeno goobaha nafwaaga ah ee uu nafta u foorariyay waxaa saakaba intii qaboonada ahayd la arkayay Abiy Ahmed oo shirka ugu jira gaari dayacan ah ama nooca dagaalka ah kuna sii fool leh halka baaruud ka qiiqayso sidaynu wararkeennii xalay ku sheegnay TPLF ayaa cawsanaysa meel aan 120 arifoof ama geedi ka durugsanayn magaalada caasimadda u ah Itoobiya Addis Ababa arrintaasi ayaa la sheegayaa inay tahay tan keentay inuu saaka dabka boobo wiilka digada kulul ee Itoobiya isaga dartii u huruushootay Abiy Ahmed sidoo kale waxaa la naawilayaa in ay furinta hore ee gulufka isgeeyaan dhammaanba madaxda dowlad deegaanada Itoobiya si ay uga qayb galaan dhiirigelin loo sameeyo ciidamada dalkaasi ee ka horjeeda duulka alamtarana soo dhaafay ee TPLF Abiy Ahmed ayaa intaanu wambarka iska dhookayna haasaajin dhanka xuuraanka iyo wardoonka ama basaasnimada wax ka soo bartay taasoo la sheegayo inuu wuxuun ku beegi karo dagaalka la iskaga baacinayo TPLF waxay tani muujinaysaa sida telefaraha uga haaday iyo weliba sida ay falaagada Tigray u noqon waayeen sidii laga malaysanayay dacdo kale dalka Mareykanka ayaa sheegay inuu guutooyin u dalban doono dalka Itoobiya si uu yiri loo samata bixiyo duulka dadkiisa taxdhiga ee dalkaasi ku uuman wuxuu Mareykanku dadkiisa halkaas ku nool ugu baaqay in ay iska diiwaan geliyaan margoogaha iyo degalada internetka ee cabuudhiisa dooyaqada ee ku leeyahay Addis Ababa isla maanta ayaa la arkayay ciidamo u kuwii duulaanka ku ekeeyay gugii 2003 dalka Ciraaq oo ka soo degay dalka Itoobiya oo duu kala rogan tahay ee jamhuuriyadda Djibouti in la wadi jiray Mareykanka ayaa la sheegay inuu amaamudayo ama uu maagan yahay inuu ciidamo gaada ah ka dejiyo Addis Ababa si la mid ah qorshihii uu Soomaaliya isugu shubay madaxa gugii 1990kii waxa kale oo jira xogada cagaysiya oo sheegaya in xukuumadda Biden ay ka tameeshay tibix bitisay in ciidamo awr kiraarayaal ama calooshooda shaqaystayaal oo ka yimid Danbari iyo Ruushka ay ka dagaal gelayaan dhufaysyada hore ee dagaalka lagula jiro TPLF waxaa la sheegay in arrintaasi walwal ku abuurtay Washington oo wadnaha farta kaga haysa in loo duso waabtiisa dooyaqada ee ku leeyahay Addis Ababa iyo danihiisa oo la dacwareemo geesta kale tabiyo xeeladlaha mar aha xildhibaanka aqlabiyadda baarlamaanka bidoodka washaysiga iyo gafuur culusta Kenya ahana gudoonkii golahaasi ninka lagu magacaabo Faarax Macalin Dawaare ayaa Soomaalida uga jadeer wacay inay abaabulaan dibadbaxyo lagu diidan yahay ama lagaga soo horjeedo gaalayacuunta Tigray wuxuu sheegay inaanay deegaamada Soomaalidu ka ceelhayso sida Muqdisho iyo Nairobi la isugu soo baxo la isna soo tubo haddii Allahooda la yahay hadalka Faarax Macalin ayaa ku soo beegmaya tiyo dalal ku yaala carreedag ay ka socdaan tawaawacay jidadka iyo wadooyinka la tuban yihiin duulka xabashida oo gabraaratada TPLF ay dhulkooda jaanta marisay ilaa hadda waxaa la isweydiinayaa waxa Soomaali uga 15 ama uga caba taageero ay siiso xabashi iyo waliba colaad ay u qaado gaalayacuunta Tigray maadaama aan midkoodna dhammaan qoomiyadaha Itoobiya aanay si kala ilka qaboobayn isuguna mid yihiin sidoo kalena iyaga laftooda Itoobiyada lagu jujuubayo ugu dambeyntii xaalka Soomaalida ayaa ku gororaya gabaygii abwaankii Soomaaliyeed ee ahaa laba gaalo oo tusiinimo gudboon maxaan midna guusha u siin midna aan u gahaadin oo aniga iga gidhiisha wararka iyaguna ka imanaya dalka Turkiga ayaa sheegaya in dib la isugu soo manaqateeyay beladii dhawaan kala dhex oroday Ankara iyo Abu Dhabi
jeesaska midoobay ee imaaraadka carabta iyo xukuumadda Rajab Tayyip Erdogan ayaa la sheegaya inay iska dhex gurayaan xaskii iyo qodaxdii dhidinka ahayd ee dhexdooda taalay, kuwaas oo iska kaashan doona dhinacyada gaashaandhigga, dhaqaalaha iyo xeeladaha. wararku waxay intaa ku darayaan in magaala madaxda dalka Turkiga Ankara laga dareemayo gogol xaadhka iyo soo dhoweynta boqorka imaaraadka wadaadka la dhaho Mohammed bin Zayed Al Nahyan iyo kooxuu budhka u tuurayo oo meja fooda gelin doona. xidhiidhkan loxoska ah ee labada dowladood ayaa iba furay bishii August kadib markii uu Turkigu socod watigiisa ku tegay la taliyaha boqorka imaaraadka carabta, taasoo jidka u jeexday inay labada nin dalalkan kala dambaaba ku wada hadlaan codfogeeyaha. Turkiga ama dowladda Cusmaaniyiinta ayaa u garbaduuban una kabaylatay siday u soo dabaali lahayd galaangalkii ay ku lahayd Bariga Dhexe iyo reeraha Carbeed oo ay dhowaan isku tuureen lafa timireed. dhowrkii caanamaal ee lasoo dhaafay waxaa iyadana dalka Turkiga gebi ahaanba dalow laga tuuriyey lana mamnuucay dulsaarka ama waxa loo yaqaano ribada si la isaga dhaadhiciyo oosha Carbeed. arrintaasi waxaa u sala joogsaday wadaadka ugu sarreeya ama muftiga dalka Cumaan, kaasoo ka soo qaaday inay tani tahay tallaabo ku dhiirasho leh oo ay qaaday xukuumadda Erdogan. wuxuu sidoo kale ka duraantay muftigani dhammaan dowladaha Islaam la yidhi inay ku daydaan dalka Turkiga oo ay qaadaan, taasoo kale haddii kale ay joojiyaan inay afka uun ka sheegtaan islaamnimada, iyagoo ribada iyo dulsaarka laba hidiidaya oo laba liqaya, sidoo kalena hanfiiraya ama laba gacmoodinaya. bugaanbugta beesha Yurub oo ugu horreeyo dalka ooda u kala rogan tahay Turkiga ee Jarmal la yidhi ayaa go'aanka madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan ku hor istaagtay ribada. wuxuu ku sheegay inay tahay mid Qur'aanka laga soo qaatay. ugu dambayn, daawade dulsaarka iyo ribadan laga gowriyey meelaha uska guyaallo ama baananka la dhigto caantaynada, shilimada dhexdoloosha, dhururida, giniga, gambooyinka iyo sumuniyada ayaa dhabarka ka wareentay oo dhexda ka jabisay jilbahana dhulka ugu dhufatay qolyaha bilaadiinta ah ee loo yaqaano cilmaaniyiinta Turkiga, kuwaasoo la welin jiray, sidoo kalena ahaa kooxihii jiqi jiray ee nuugi jiray, sidoo kalena dhadhanka ku hayay dulsaarka iyo ribada. dhinaca buuraha Toroboro, fallaagada qabsatay Afghanistan ee Taliban ayaa ka hilaacday mar kale hal fadhigeed, waxaana ay xaaraan iyo maqdac ku tilmaantay in duulka haweenna yidhi ay fiirsadaan ama daawadaan, sidoo kalena gambadh ugu soo fadhiistaan taxanaha aflaanta ay jiraan rag iyo naago isdhex boodaya. waxay heer ka soo saartay Taliban in maraadooyinka saqadarida, kuwa isleefa, naagaha kabacdeeya, bakaylaliqda, guumaha iyo dhoocoluhu u soo fadhiistaan daawashada filimaanta aanay diintu ogolayn oo ay wakhtiga ku lumiyaan halkii ay guryahooda ka shaqayn lahaayeen. waxay sheegtay Taliban in tan dumarku ku danseegeen oo aanay waxba u soo wadin. waxay sheegeen in digsiyadii dabka loo saaray abaydinku ay gubteen intay indhaha la raacayeen. fariin ay soo saartay wasaaradda dhaqanka iyo diinta ee dalka Afghanistan ayaa lagu faray dhammaan quraaradaha la iska arko iyo dhalooyinka warka duuba inaanay wax taxane ama musasala oo jilaya kalgacal iyo jacayl rag isdhex boodaya sii dayn karin. iyaguna waxaa lagu amray naagaha wararka tebiya meelaha warbaahintu inay hagoogtaan oo masar iyo xidhaan garbasaar ama dejalaabiib. waxaa loo soo jeediyey inaanay iyaga oo mudhiya andariir ah dhalooyinka soo fadhiisan. dhinaca Soomaaliya, Maxamed Cabdi Xayir Maaleeyo, haddana la baxay Maareeye, oo 20kii gu'ay u dambeeyey ka ciidaminayo ceelka Xamar ayaa barqadii maanta isku caana shubay. Maaleeyo oo xukuumadda hadda jirta ee farmaajo aanay isku sanbanaaneen ayaa la sheegay in la hollin waayey oo loo waayey cid u soo babac dhigta. waxaa la sheegay in aanay jirinba cid kula loolantay wambarkan saaka lagu talay ama maqaarka loo marmariyey. Maaleeyo wuxuu sidoo kale noqonayaa mudanihii labaad ee soo rogaal celiya baarlamaankii labaad ee Soomaaliya. sidoo kale waxaa la hiraadinayaa in codkiisu uu noqon doono mid furan oo duulka wambarka sare u xusul duuban kala xaajoon karaan. docda kale, midowga murashaxiinta Soomaaliya ayaa faracididooda iskaga hahaya inay guud ahaan ka biyadiidaan waxa doorashada lagu sheegay awalba dadbanayd ee laga malaqboorinayo Muqdisho. midowga murashaxiinta ayaa la sheegay inay ka wisiisiyeen sida wax loo wado oo ah bay yidhaahdeen si aan waxba uga cabin iyaga. waxaa la sheegay inay dharaarahanba wadeen wadatashi ku qotoma sidii loo yeeli lahaa waxa hadda la macmacayo iyo sida xaal yahay. xubno badan oo ka dhex batorinaya dhanka midowga murashaxiinta oo maaganaa inay u ordaan kuraas baarlamaan ayaa ku hugoobay kadib kolkii laga hoos qaadi waayey araaji ay u gudbiyeen. siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sida xilka leh ee wax u socdaan u sibir saaray ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo uu ku eedeeyey inuu ka baxay wacadkii uu hore ula galay. sidoo kale reeraha carre edeg ee weesha Jimce iyo dawarada ku kaaleeya xukuumadda farmaajo ayaa si weyn u qawadsan hanaanka wax loo duduucayay iyo sida loo luudinayo geedi socodka doorashada oo aaminteedii kaba daahday.
ugu dambayntii daawada warsidaha la dhaho joornaalka warka qaada ama Queerial Journal ayaa boggiisa hore ku soo tutuweeyay xog uu ku xarxariiqay dagaalada idifka la iskula jiro ee ka durfaandhabaya dalka Itoobiya kuwaasoo gujirsaday una dhaxeeya falaagada TPLF iyo dowladda dhexe. jaraa'idkan ayaa humaag halis badan ka bixiyay dagaalada u dhaxeeya labada col sida ay u haligayaan dad iyo dunyaba, isla jeerkaasna dheriga saabka uga geliyeen ummaddii halkaa joogtay kuwaasoo bilo kale ku faruuraya buu yidhi dowladaha oodu u kala rogan tahay iyo gobolka Geeska Afrika. wuxuu sheegay in qaansalayda TPLF oo garabsanaysa dabatada Oromada ee Oola ay kulaalayaan Addis Ababa kuwaasoo raba inay cudud kula wareegaan. wuxuu sheegay haddiiba ay taasi timaado inaan xaaladda la saadaalin karin tiyoyna Biden uu isna ku baaqay buu yidhi in nabadda lagu soo dabaalo xaaladda taasoo aan la ogeyn inay wax ka fuli doonaan. warsidahani wuxuu warkiisa diiradda ku saaray siday colaadda Itoobiya u noqon doonto baruur keliya baruuro qurmisa iyadoo digada hulaaqaysa iyo dhimbiisha dabka ah ee duusha ay u gudbi doonto buu yidhi dooxooyinka nabdoon ee Jabuuti iyo Somaliland. wuxuu bitiyey nabadda loo fadhiyo Somaliland iyo Jabuuti ay soo jiidan karto kooxaha argagixisada ee doonaya maxaabiista dagaal ee firxadka ah iyo dadka kale ee ka soo firdhanaya colaadda Itoobiya si buu yidhi ay uga faa'iidaystaan hadba jabadka nabdoon ee geeska qaaradda gaar ahaan deegaamada Somaliland iyo Jabuuti. intaa wuxuu ku daray wargeysku in dagaallo sokeeya oo ka abuurmay Itoobiya gaar ahaan iska horimaadka u dhaxeeya TPLF iyo Abiy Ahmed ay uga sii dari karto xasilooni darrada ka jirta Suudaan oo lafteeda uu ka taagan yahay ismariwaa u dhaxeeya dadka u ololaya dimuqraadiyadda iyo ciidamada militariga. ugu dambayntii Itoobiya lafteeda buu yidhi dagaal sokeeya oo dhan walba ah ayuu wargeysku sheegay inuu ka noqon karo masiibo aan laga lagu bixin taasoo sii hurin karta xiisad ka dhalata Itoobiya oo ka kooban ilaa 80 qowmiyadood oo iyaguna birta iska asli doona. intaa warranay waxaanu ku darna moogin wax weydiin ogaal ka sheegnay waa Maxamed Aadan Dire tan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo nooli kulante.